duqa magaalada Muqdisho Thabit Cabdi Mohamed ayaa waxa la sheegayaa inuu isa soo tarayo khilaaf ragaadiyay oo dhex yaala isaga iyo maamulka sare ee dawladda waxaana la sheegayaa khilaafka ka soo burqanaya aqalka Villa Soomaaliya inuu salka ku hayo xadhigii loo geystay siyaasi Cabdirashakuur Warsame iyo sanatarkii gurigiisa la galay waxaana arrintan shaaca qaaday baa la leeyahay toddobaadadaas markii ay arrimahaasi dhacayeen ayaa waxa la ballanqeeyay oo la abaabulay shir loo doonayo oo la leeyahay waxa duqa magaalada ayaa dabada ka riixayay oo la ajandihiisuna ahaa in la sameeyo maamul u gaara magaalada Muqdisho oo la dhigaba la leeyahay ama la tartama maamul goboleedada walow aan habka federaalka aan maamul goboleedada la dhigdhigi karin marka loo raaco sharciga caalamiga ah haddana waxa fikirka Soomaalidu yahay si ay ugu helaan awood qaybsi ama ay u helaan inay saami dheeraad ku qaataan dadka qaari walow imika la leeyahay waxa inta badan ku taageersan beelaha deegaanka magaalada Muqdisho ee caasimadda waxaana arrinkani aad u soo shaac baxay toddobaadkii hore markii uu shirka kaga qayb galay magaalada Dhuusamareeb halkaas iyo ximan lagu soo afjarayay khilaaf muddo haystay maamul goboleedkaasi oo asal ahaan isagu ka soo jeedo ayaa waxa la sheegayaa inuu soo dacal fadhiistay madaxda maamul goboleedada kale isagoo metelaya gobolka Banaadir waxaana warku sheegayaa inuu khilaafku cirka isku sii shareeray toddobaadadan iminkana ay qarka u saaran tahay in la bedelo oo walow uu taageero ka helayo baa la leeyahay madaxweynaha waxaana laga yaabaa baa la leeyahay khilaafkaasi inuu saameyn ku yeesho toosa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha marka ugu dambaysa